Sidee Sara Ali Khan boqolkiiba miisaankeeda ahaa ku riday gabar dhuubanna ku noqotay haweeney 40 jir ayaa la moodi jiray. Saif Ali Khan iyo Amrita Singh gabadhooda Sara Ali Khan sanado ka hor waxay ahayd gabar miisaan culus oo aad u buuran, miisaankeeda 100 kg ayuu ahaa ku dhawaad, balse dadaal badan oo ay muujisay xidigtan maanta waa gabar dhuuban oo qofkii arka u malaynin inay 100 kiilo ka timid. Dadka qaar ayaa la yaabeen xogtan gadaal laga ogaado ah in Sara 100 kiilo ahayd, safar dheerna u soo gashay siday isku caateen lahayd. Haddaba maxay ku qasbay Sara inay miisaankeeda dhinto, sideese ugu guulaysatay? Waraysi ay dhowaan bixisay waxaa lagu ogaaday jawaabaha su'aalahan. Sara ayaa tiri aabahay wuxuu i dhihi jiray dadka inay shuruq ku dhahan ama buuranta wax aad ku farxi doonta ma ahan ee miisaankaada wax ka dhin, sidaa ayuu i dhihi jiray aabahay, waa qofka koowaad ee i dhiirigeliyey. Iyadoo ka hadlaysay hamigeeda siduu miisaankan ku kordhay iyo fikradda ku dhalatay, waxay tiri Colombia ayaan 4 sano waxbarasho jaamacadeed u aaday, waxaan badiyay isticmaalka ama cunidda biizaha taasoo kaliftay in miisaankeedii sii kordho. 96 kiilo ayaan noqday, marna waan kasii sare maray. Waxaa igu dhashtay hami ah inaan attriisho noqdo. Haddana waxaan xasuustay inaan noqon karin anigoo sidaan ah, waana markii aan go'aan ku gaaray inaan miisaankayga iska rido aan iscaateeyo. Sidee 30 kiilo ay miisaankeeda kaga dhintay? Sara oo sheegaysa waxay tiri ugu yaraan 30 kiilo ayaan miisaankayga ka dhimay, waxaana joojiyay cunista biizaha iyo cunooyinka lagu cayilo oo dhan. Waxaan badiyay jimicsiga, orodka, socodka iyo daansiga. Sidoo kale cunooyinka aan dufanta lahayn oo wanaagsan ayaan cuni jiray sida qudaarta, ukunta iyo waxyaabo kale oo fudud. Sara waxay tusaale u noqonaysaa gabdho badan oo iyaguna niyadda ku hayeen inay miisaanka iska ridaan balse dhiirigeliye u baahnaayeen. Midaan ayaa dhiirigelin ugu filan.